كلنا وعنو ونكسن لما أنت بدتك هذا نجلس على ومركل برنامج كنا ويارك وهي تحانيه هالكنكي مجاهد محمود وداد محمود أحمد حسن oo imkana ka mid ah salaadinta dhaqanka ee Soomaaliland ayaan halkan idinku soo gudbinaynay toddobaadkii ugu dambeeyay waxaad la socoteen hawlgalkii aroori ee 85kii waxa kale oo haddaba inagu halkii hore uga sii socon doona jiray hawlgallo badan oo kale oo uu ka qayb galay oo gaar ahaa isla markaasna ahaa hawlgallada unug yar kooban ay fulin jirtay inta badan iskuna soo kana dhex fulin jireen ciidankii baaxadda badnaa محمد سياد بخير هالقلب واحد جري سلطان عاد قيب كاهد أو كدعي ماشي اللي يرضى بورلي كنا سجال بقول تدبي ستيتنكي صح إن بالهالقلب كاسي وجددي سواحد صاد بوكشين هالكات كسر قاقدين نتيجة سواحد نقطي أيام تعلها إن هذا ورنتو قد ما تسنت أحمد هالقلب كهدان كورمو إن markii annaga uu gudagalkayagu batay waxa dhacday in ciidan gaaska saddexaad ka tirsan oo la soo dejiyay meesha la yiraahdo Buurley oo aan hore u deganaan jirin ciidankaasi dadna waxaan ogaanay ciidan halka in la soo dejiyay in ciidanka waxa haystay nin korneyl ahaa oo la yiraahdo ina biixi وبريد ويدنا هيستبع إذا مدى الصوماليلان أن وحاهي تدبي ستيتنكي مركي أنا وقالنا هالكاين عيدن كالا سودتشي أيان أوبريشن تي أرسناي إن أنا عيدن كا أربستان أنا ويرهون قبصنا ماشا تبعتو عيدن كايجي توكل أي هالكا سبب لي aad baan u badnayn markaa maalinta in suldaadna ka dhaxal si dadku ogaadaan in Buurley halkee ayay ku taalaa halkee u dhowdahay bal looga war horta istiraatiijiyada iyo halka ka soo dhaqaaqaysan iyo inta isku jireen waxay ku taalaa horta waxaan ka soo dhaqaaqnay meesha la yiraahdo cadaada waxay ku taalaa wadada qaaxa la yiraahdo waxa weeye malaa waxay ka yar sareysaa 1 kilometer Buurleyna waxay ku taalaa goray meesha la yiraahdo gorayaxun oo xadka ku taala ayaa wadada ka baxday ee burc u baxda ayaa sii marta waxay u jirtaa taqriiban waxaan oran karaa burco iyo meesha xadka ee la yiraahdo gorayooda ee gorayaxun way kala badhaa laakiin xagga galbeed waxa ka saaran Jeenyalaaye oo saldhig military oo saldhig military oo xukuma xadkana uu ka hooseeya waxaanu xukumaa meesha lagu yiraahdo daba gorayaale iyo khaatumo ayuu xukumaa iyo goreexun intaas xukumi jiray ayaan jeclahay ma uu xukumaa daba gorayaale iyo khaatumo xagga barina waxa ka xigay bisiqa oo isna taliskii xukumayay goreexun iyo duruqsi marka way u dhaxaysaa meeshani marka iyadoo cadowga xadka ay khaatumo iyo goreexun leenka taxayiin ay leenkii xadka ay taxayiin ayaa raacay labaad la dhigana wuxuu yahay ka hooseeyaa wuxuu yahay Jeenyalaaye Buurley iyo bisiqana xagga shay waxa ka sii xigtay de Taalabuur iyo xiridu catiyo saasay taxayiin aad wax xuriyay oo waqtigii dambe ayay sameeyeen raac labaad oo dambe ya marka halka ayaanu ka amba baxnay waxaana nudi inta ciidanka halka la dejiyay waa inaynu ku baxnaayo meesha aynu qabsanaa marka operation yaro ku dhafo ka dhaqaaqa ugumana amba bixin waxaan ugu amba baxnay in aanu inta halka joogtaba aanu waxna ku leeno waxay haystaan ka soo qabsano marka waxaan watay Allah yarxamo Cabdi Maxamed Feer tiradayada waxaan ku qiyaasayaa ilaa 35 mujaahid baabuurta aan wadanay waxaan ku qiyaasayaa waxaan ahayn 4 gaari afarta gaari laba qoriyo saaran yihiin
iyo laba gawadhidii jaadka ah. markaa waxaanu ka anbabaxnay meesha la yidhaahdo cadaada, waxaanu maray laan mulaaxo, xadkii waanu dhaafnay. markaa laan mulaaxo ciidamay deganeen? ciidamo degana meel yaroo balliga cali faarax tulomeel la odhan jiray oo ka hooseysay xadka ayaanu soo maray. janyalaaya xagga bari ayaanu ka maray, qordajeex ayaanu nahay. dabeedna xagga hoose ayaanu kaga dhacnay wadadii ka baxasay goreexun ee boodh la gelisay. wadada lafteedaanu qaadno. waktigu habeenkii intaa hore waanu sii gudnoo salaad waxaanu xadka ka tallaabanaa qiyaasihii ilaa 2 habeennimo. inta waxaanu sii qardajeexnaba marka ay 6 subaxnimo tahay ayaanu gaadhnay meeshii la odhan jiray boodhley. marka tuulaa ku taalla boodhley waxay degeen kan yaroo ka dambayso oo xagga burco ka xigta. sahankeedoo suganna waanu haynaa. dabeeto tuulihii baanu dhaafnay. markiiba 4 gaari oo kala degno oo kala baxnay. waa weerar baanu ku qabanay iyagoo hurda oo kaceen markiiba oo dee nala dagaalamay. ninkiina biixi meesha haystay wuu naga baxsaday. laakiin halkii baanu deedna ciidan badan kaga laynay. xeradii baanu qabsanay. wixii u yaalay baanu soo raranay. waxa meesha yaalay oo berigaas soo dego baabuurtii cusbayd ahayd. gaari weyn oo waxaa lagu yidhi midowga Yurub baa malaa sameeya oo la odhan jiray bigaase. soomaaliduna ay u taqaanay fuqay buraray. gaarigaasoo nagu cusbaayo oo aanan hore u arag ayaanu ku qabsanay xeradii. gaarigii baanu galay oo gaari aan hore u aragnay waxba ma saara. waa baroba kuraasidiisuba bacdi bay leeyihiin. halkii baanu xeradii geli lafnay. gaarigii baanu istaadhnay. waanu helay meelihii laga istaariyay. dhowr meelood dabka laga xuluu leeyahay. waanu istaadhnay. waanu soo kaxaysanay gaarigii. maxaa haddaba nagu dhacay? gaarigii waxaa rasaastii dhacsi aanu ridanay. gaarigu dee xeradu dhex taagnaa ayaa taayirada qaar kaga dhacday. gaarigii waxaa soo kaxaynay anigo mujaahid la odhan jiray allah yarxamo cali afdheer. dagaalkii waxaanu ka faraxlaynaba 8 subaxnimo. 2 saacadood dhuubin ku qaatay. markaa ciidan badan oo xoogan baa meesha kala kulmay. ayaa nagala kulmay. laakiin dee waa naga jabinay xeradii ka qabsanay. wixii dhintay mooyaane wixii kalena ay yaaceen. maxaa khasaarada kusoo gaadhay dadka markaa? annaga hal qof nagagama dhaawacmin. hal mujaahid dhaawac nagagama gaadhin. gaarigii baanu soo kaxaysano. markaan boodhley tuulahaba soo yar dhaafnay aanu wadadii marano ayaa markiiba taayir naga banjar. taayir rasaastu ay ku dhacday. istabnigii baanu ku xidhna. istabnigana shooxabad baa isna ku taala. markaan haddana dhaqaaqnay ayuu haddana naga fadhiista. maryaadeen wadadii dee min roodkiina waanu haysanaa oo mabaanan ka qardajeexba gaadhin. markaasaa la yidhi har aan bahalka gubno iskaga tagno. saanulahi la gubin bahalkani daaye waa banjarkii baan ku yaro soconno. aduu markii dambe ayaa mid kalena fadhiista. dabeedna waxa la yidhi waanu ka baxnay markaa wadadii. waxaanu qardajeex baanu gallay. kayn baanu istaagnay. walaal mujaahidiintii waxay soo gureen xaabo. waxay dhaheen waynu gubanaa. aniga mujaahidkaa la odhan jiray cali afdheer ayaa nidhi may gubi mayno. gaarigaa oo gaari qiimo leh loo kaxaysananaaye. arfa kasta xaggan naga imanaysa. xaggan waxay naga saaran bisiqi. xagganna waxay naga saaran janyalaaye. xaggan waxay naga horeysaa goreexun. xaggan kale naga sii xigta khaatumo. xaggan dambe waa lagaga soo bixi karaa ayaa burco. xaggan kale oodweyne ayaa lagaga soo bixi karaa. waxaanu nihi may
halka intii difaac uun gala annaga baa halka shaqeynanay waxaan ku jeegid waan haynaayo waan tulaano markii dambe ayaanu taayiradii labadii taayirkii hore banjaray ayaanu xagga dambe ku xidhnay kii xagga dambe ku xidhay buuxayna xagga hore aanu gelin doo gaari weyn oo furfurkiisa iyo inta aad dalacaso iyo inta oo dana dhulka qabsaday oo haddana aad kolba qoriyo meesha dhagaxma leh aad kolba qoriyo soo qaadasad u dhigaso waxaan ku iri ilaa waxay nagu gaadhay koodii maalinimo meeshiina wax yar baabana ka soo socono waxaan u dhownahay meel la yiraahdo baliga cali faarax wax gurmadooda ka dabay ma jirtaan maanta wax gurmada gurmadku waxa weeye aqoladayadii kala taarka ka dhageysanaysa qolo walba waxa la yiri bax oo ku bax ya maasa qolo walba waxa leedahay waan baxan raadkoodii baan haynaa wali oo sii socda oo ma naan gaadhin aqoladayadii kala taarka ka dhageysanaysa waxaan ku wanaagsanin taararwan haysanay rakaalo laakiin rakaalada ma aan ka hadli jirin wala dhageysan jiray waxa allaale waxa isu dirayaan iyo waxa isleeyihiin marka taliska iyagiyo guday ilaa ciidamada kale ee sanamee ilaa kuwa galbeedka ilaa kuwa bariga inta way dhageysanayaan way maqlayaan ilaa dib wax laga dhageysanaya xafiiska jigjiga ilaa xafiiska dira dhabo rakaalkiya dadna halkii baan taaba halkii waxaanu sameynay inaan laba taayir oo banjara xagga dambe ku xidhno labada buuxana xagga hore gelino dabeedna aanu gaariga sangeerka gelino xagga dambe daawaha ku ordo daawayaashiisu may ahayn dhambaco daawayaashiisu waxay ahayn riinna may lahayn daawayaashiisu waxay ahayn kuwan is haystee aan la kabada ahayne daawo weyn oo is haysta oo aan riinna lahayn ayuu ahaa daawayaashiisu deedna waxaanu idhi taayirkuna ha googo daawayaasha ama ku socda waxa jiidaya dee labada taayiro hore mara dad sageerka hirgelisa laakiin dee muxuu sameynayaa siiguu sameynayaa cirka isku tulasa oo lagaa soo arkaya dee meel kasta sidii baan kusoo kaxayn kow maalintii oo dhan dee aadna u dheerayn maayo waanu shidaalsan yahay laakiin shidaalsan yahay anaguna dee shidaal baan sidanaaba sax oo waxaan sidanaa 200 litir oo dhow waxa way 100 naafta iyo 100 batrool hadaad gaari naafta hesho iyo hadaad gaari batrool hesho labadaba si aad ugu shuban lahayd waan u qaadan jiray markastoo aanu gudaha gelino sax in aanu reserve shidaal oo intaas aanu helaa gaari bilaa shidaal inaanu ku shubano sidii baan toos ugu soo soconay halkii waan iska nasinaa deeylo waa baabur aniyo in ka loo jiray cali mujaahidka Allah yarxamo wuxuu naga dhintay aydheedkii buro bigaasaha laftiisii oo qori saaran yahay oo sugsaaran isagoo wada ay buraan naga dhintay aydheedkii Allah yarxamo raximin mujaahid aad u geesay ayuu ahaa halkii baan sidii baan ku soconay dabeedna meel xaaji saalax iyagoo jooga oo noo galay halkaa ayaanu barkadaha soo maray xagaasi noogu sii wada jeestay waa idin arkayeen markaa waa noo dhow haa waxa weeye casarkii gaabnaa ayaan halkaa ka taloonay iyadoo dee siigadu iyadana cirka ku shareeran tahay dee kuwa goraya xuna wayna arkayaan oo xaaji saalax iyo goraya waxbay isugu jiraan xaggana dee khaatimo laanna laxuun ruusin baka ka egta jayala ina waa taliskoodii waxaan ku iri sidaanu soconaan xadkii ka taloonay annaga oo dee siigadana saaran aanad malaynahayn gaariguna shiraaq muu lahayn oo isku furaa sida aanu u soo wadnay ayaanu deedna aadan maanyaro soo galay aadan maanyaraanu soo dhex maray dee waxa aadan maanyaro jooga dhalinyaroo dee reer burca markaas mayna yidhahdun alla waa fuqay bararay anagu ma naqaano wax la yidhaahdo masalan talo midkaydi sheegay anaga afka istaaban see war fuqa alla waa fuqay bararay ma gaarigii sheegayaan dabadeedna nin mujaahidha gaari weyn lahaa oo operation hore oo aanu galay meel la yidhaha bisiqa aanu qabsanay jiri aanu kasoo kaxaysanoo la odhan jiray gaari UD lahaa ina qacla la odhan jiray
ayaaba jooga ina qaclaan ka soo furanay istamnigii taayiradu soo taayirada 1200 way geliyaan 20 daawihiisuna waa 20 ba oo way iskiliyaanba istamnig waan ka qaadnay mid kalena istabno qaadno 2 taayir baan markiiba gelinay oo xagga dambe inkastoo in yar ka gaabay yihiin laakiin dee danka ba leeyihiin operation-ka aqaasana ku keenay aanu ka soo nabad galay oo aanu ku nimid in aadan maayar iyo cadaada talisyadayadii operation aad guul wanaagsan aanu ku gaadhnayna wuu ahaa operation 35 waad bad qabteen waanu wada bad qabnay gaari wanaagsanna waad soo heshay gaari wanaagsanna waan soo helay bal gaariga hadda waxaad nooga sheekaysaa bal gaariga taariikhdiisii sidaad qoriga u saarteen hawlgaladii uu ka qayb galay maadaama aad isku qabateen markii aad soo qabsateen inaad gubtaan ood ka tagtaan adigii nin kaloo keliyina aad go'aansateen inaan la gubin aad silcid raxmo ku keenteen aad ku tallaabiseen bal qadar nooga sheekay iminka maalin dhaweyto waxaan wada fadhinay nin aad u daayaraayo 35 qayga ka mid ahaa oo iminka xaggan Yurubta ka yimid oo la dhaca Cabdi Dhagaweyne wuxuu nooga sheekeynaya anagoo wada fadhina guri halkaas ayuu xasuusiyay maalinta ay xawada soo gareen dhahdee aniga Cali aanu diidnay in gaariga la gubo ay dhahdeen dhan walba wana laga imanayaa gaariga aan gubnoon iskaga tagno haddaba gaarigii ciidankayagii iyo guud ahaan ururka SNM-ba aad buu anfacay waayo gaarigii horta waxaanu saaray qori suuga tiknikadii aanu ururinay SNM la isu wada keenay markii dambe ee la soo gelayay gudaha loo kala qaybiyay bariga iyo galbeedkana uu galay qaybtii bariga ee burcagelisay ayuu raacay gaarigii bigaasaa ahaa dee gaari barooyana uu ahaa aad ayuu noo anfacay ilaa markii burca laga soo baxay gaarigii waxa waday weyd mujaahid la yidhaahdo inuu nool yahay iminka ayaan jecelahay gaarigii imikadaa inuu waxaan jecelahay ciidanka qaranka bigaasi uu ku jiro waayo koowaad baa markii dambe gaarigii ee burca laga soo baxay ciidankii koowaad ayaa haysan jirtay oo weyd baa wadi jiray marka gaarigii wax badan Axmed oo aan la soo koobi karahay ayaa laga faa'iido waxtarkiisa uu noqday gaari aad u cusubna waa bilaa ciladna waa bahalahaasi ma oo cusbaayeen sida runtii marka horta Axmed oo imika barnaamijyadan aynu duubano waxa weeye mid aan aniga imika Maxamuud ahaan aan ku faanayo ama aan isku baraayo dadka maaha waxaan uga jeednaa barnaamijkan oo kale inta taariikhii waxay wada soo maray taariikhda da'yarteena aan ogeyni waxa loo soo maray ay ogaadaan oo ay dhageystaan oo ay ururiyaan iyagoo ay taariikhda iyaguna ku ay sii gaarsiiyaan kuwa ka dambeeya sidii wadanka loo xoreeyay halgankii loo soo maray hawshii adkeyd ee loo soo dhabar adeegay inta dad ee ku soo dhimatay inta dhiig ku maqan inta geesa ku maqan inta hanti ku luntay ee ku maqan waxa weeye maanta kuwa yarar aanu dhalay imika intaynu soo galnay wadanka 91kii dhashay dee maanta waa 31 jirkaasi ma garanayo waxa weeye waxaan u soo jeedin lahaa waliba xukuumadana in manhajka ardayda loo dhigayo lagu soo daro oo waxa weeye waa lagu daraa imika tii Sayid Maxamed Cabdullaahi Xasan baa lagu soo dari jiray iyo xaawataaka iyo oo aan intan in leeg waxay yihiin aan la aqoon ma garato iyadoo de Sayid Maxamed Cabdullaahi Xasan uu yahay ninkii horta Ingiriis la dagaalamay isaga daraawiish taariikhdooda ma aasano way jirtay laakiin haddana tii ka dambeysay ee Somaliland loo soo maray ee adkayd ee ugu cuslayd ee ugu dhimashada bandeed ee ugu hanti baaba badnayd ee waxa weeye naf iyo maalba loo huray weey marka in la ogaado oo waxaan ku uri cidii wax ka qori kartaa ay wax ka qorto
oo ciddii ma garanaysaa aan ogeyni ay ogaato akhrisaan ay xafidaan ayaa loo baahan yahay waayo dee axmedo inagu imika sii noolaan mayno ilaahay waxa weeye dee qof walba wuxuu ugu ballan qaaday inuu dhimanayo marka qof waliba inuu inta nool uu gaadhsiiyo wixii jiray ee taariikha ee muhiima waddanku leeyahay si dadkani ay wadaniyadda iyo muwaadinimada ay u jeclaadaan waxa weeye inta maanta reer Somaliland qof aanay taaban oo aanay waxyeelin oo ama aan inan ama oday ama inani aanay kaga dhimanin ma jiro dee hantina hadalkeeda badaayo hargeysa burciyo berberaba dee waxa weeye dhulka la soo waxay hanti yaalayna waa laga dhaqaaqay iyadoo la qaawan yahay waa tii la baxay haddana dadku waxaad moodaa inay weli ilo sheedo yihiin aanay xasuusnayn taa marka taana dadka intaasoo soo yar jeedin lahaa waxa weeye in ay taariikhaha ururisadaan oo ay dhigeystaan oo ay ogaadaan da'yartay waliba ku socotaay ay ogaadaan wixii loo soo maray iyo intay iyo siday ahayd oo ay u diyaar garoobeen kuwaasoo kala noqdo hadday timaado waxa weeye oo adduun baa la joogaayo adduunkanina kulay hawlihiisa uu leeyahay wadankuna mar walba difaac uu kaaga baahan yahay hadday difaac dadban tahay iyo hadday difaac runaba tahay dee waxa weeye dawlad baa kugu soo duuli karta waxa weeye dibadda lagaga soo duuli karaa mid siyaasiyaysan iyo mid rasmiyaba way kugu iman kartaa marka waxa weeye dee dadkeena hore saasaynu soo difaacno dalka aynu Somaliland soo gaarsiinay kuna dhawaaqnay gooni goosi calankan tawxiidka lana aynu ku taagnay inagu waajibkeeni waanu ka soo baxnay laakiin waxay u taalaa kuwa dambe inay ilaashadaan iyagoo wixii loo soo maray intaasna xasuusinana taasna runtii waa tala aad u wanaagsan ilaahay ha ka abaalmariyo in taladaas iyo waayaragnimada iyo xusuusta aad u soo jeedisay barnaamijkan qaybtan aanu ku tala galay oo ahayd qaybtii 9aad intaas ayaan ku soo gabagabeyn doonaa taxanaha halgama mujaahid maxamuud axmed xasan qaybo kale oo kamid ah ayaa toddobaadka dambe aanu idin soo gudbin doonaa haddii ilaahay raalli ka noqdo balse imka waxaan leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh